عليكم ورحمة الله وبركاته. وصحن سحميدي جروب يا برنامج كيني شنطة شيكو iyo shaah. caawa shanta sheekana diin haynaa. Waxaan sheeko aad u qosol badan kuwii hore ee aan idinka sheekeynay waxa weeye dad badan baa ka helay oo yiri sheekooyinkaas waa sheekooyin qosol badan. Sheekooyin kamidana farta ku gudan baa leeyahay. Waa qudada waan saxi doonaa insha Allah markasta fikradiina ayaa noo muhiima. idinka waxaad ku nahay idinka hagaya marka waan saxi doonaa insha Allah diilay caawa shanta sheeka aan halkan ku hayno waxayna furi doonaa caawa hadaan soo qaato sheekada igu qosolka badnay waxay ahayd ninba qurbooyin badan ku moona xaaskiisina wadankii joogtay dabeetana habeenkii dambe ayuu markii dambe dhowr sano 6 sano kadib meelaha way hore bay maraya ayaa buu ku soo noqday xaaskiisii reerkiisii dabeetana habeenkii horeysay markuu yimiba waxa arkay ku yaroo dee uu adeer u yahay oo xaafadii la jooga xaafadiina dee waa iska dee dhaqaalaha yaraayo aad buu u yartay waxa hal qolan baa moogtay dabeetana markaasuu midiro dee kan yaree la jooga waa dabaal hadaba adeer buu dabeetana markaasuu aadyaa markaasuu dabeetana $10 buu siiyey moogtay markaasuu ku yiri ordo adeer caawa la soo seexo dabeetana kii yar hata wixii uu qaatay adeerkii buu tagay dabeetana adeerkiiba ayuu tagay wax ku yiri aabo wuxuu aabay soo diray oo igu adeerow tag adeera yimiyo soo diray gure adeerow tag dabeetana kiina odagii dee inaan ka iska soo dirnaa markuu dee iska soo diray dee waa farxayo xisirtay mar haddii ilaahay kadii dhaqaajiyay dee hadday tahay bisri magaranaysaa dee saqdi dhaxay isagoo hurday isu diyaarinaya dee ayuun buu ka yaraa u diyaar baa soo garaayba war maxaa ku wada adeera $20 bii soo siiyo wuxuu ugu yiri dee adeerana igu salaamo dee bil aadan baan nahay buu ku yiri annagu bil aadan baan taasay ugu qosol badnay sheekada dee waxay ila tahay inuu ka yaraado oo dabaalka sheegaysa inuu odayga ninkaan inuu uga dhacay hadii sheekada uga dhici lahayn wala isla fahmay labadii oday waaweynaa isugu dabaalkan marka hore bada dhagax lacag badiyay أنا كبقول إنه أقدر واحد تام كتاب سيا قربانك ما هو غير جا ملقي يا بقولي إنه بقول أقدر يقولي كتنة سكسي لبض ولا لا شيء شكل لبض إيه قوة شكل لبض عم برتاح كسي قبسني هو تعال هاي أنا بدنا واحد شعله هاي شيكوين عن وحيابها عن سقبانين أيان شعلها مرة واحد نين باو قوي جن كتجي أو مقدشوا تجي هاي muqdisho markuu tagay buu gabadh buu xagga iskaga guursado xaas buu ku yeeshay oo wax yarba markaa uu joogaa maalintii gabadhii baa uu mushay oo gabadh inan yaroo waxa uu mushay aan lixaad dhamayn kadib isaga oo ninkii ay ku furan tahay oo aan shaqo badan ahayn gabadhii yareedna ay ka xanuunsanayso dee lixaadna ay haddana gabadh uur qaado أنا محيرة لدون تاني كوربر ولا محافظة عريانة كبلان دونا عريان كسي درم بيدال دون ما أنت قبادي بفول باقبتي ودكتور كار لقي دكتور كي لقي ولو ذا سوق عيدي أيا لي وايد الشيء كسود محيد الشيء مثلا إيجار كيم يرو زارو وقروة وحسيو يا وديسا هاي وديسا يا أصحاب طيب أفترك مكل صانع ندري وقوية أصلا وشوف مقدسو جوجا أو كاريا وحير كسوري كاريا قوادي ذا كريا بس كسارة أيو أتجي وراه السلام وأنا نعتقد مش هاي محايا مش يقولوا محايا شو مكسو إيجار مركبان قروا محاوي أرمس بعد شو يقول لا ما أنا أصير دكتور كان يقول شيء سلامتي مو عارف مصبع الشيء مسا غاري ارجيسو جعلنا ما كتاغي كان إسار وراي غاري wax ma ka banaa boos ka banaa ha isaar ninkii gaariga uu fuulayo argeysu ka dagi gabadhii hadalkeeda telefoon ma jiro dad kale haduu weydiin lahaa adu waa dhunta argeysadii soo iska jira
ayuu nin reexan ay isbarteen saaxiib noqdeen صح markaasuu alaykum salaam anigu dhadee muqdisho waa joogi jiro caynkaasoo gabadhii horaa iga dhashay gabadhii waxay dhashay ilmihii hore waxay dhashay Eryaan haddana ilmihii labaad ayaa xasan wax fiican uu sugayay daslaha ilmaha umada caafimaad qaba dhasay ayaa waxaaba dhashay wax kasii daran igaar bay igaar ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله ومصبة ما شاء الله مصبة لزو بدنك ورمصمة إيجار كويل إيجار ويل واي ممكن ويل ويل سوري ما حد عاد أنا كسوي دي لبدي نكيب صحن كسوري إيجار ماشى واحد لقى يقنا ويل marka maskano meesha waa ku jira ma saalay igaar waa igaar wallo kala saaray marka ninkii horta sidii uu soo noqday oo raali gelin ku bixiyay oo markii soo noqday xaafadii awili waan wax bilaaya oo kii aw saaxiibada ahaan la cululo waa ninkii gaari ninkan gaari uu raac buu saaray marka horta soo ka shaqeysto dilaalkiisa ka qaaday marka horta ninka ari sheekadaas sheekadii koobaad waa taa lahayay inuu wixii anna mid baa yaraahayaa si maartaan aad u dheereen inta kara xaliilay waagi Soomaaliya ay halka dawladda ahayna Soomaaliya isku oran jiray ayaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa nin wuxuu ahaa reer koonfureed marka gudoomiyihii wuxuu aaday maalin kadib Hargeysa u tagay wuxuu isdaay bankigaas laantiisa bankiga dhexe laantiisa oo Hargeysa wax asxaabtii wixii dadkii ka shaqeynayay iyo wixii bal shaqaalihiisa way Soomaaliya nin gudoomiyaha wadada hoos tagaan bal wuxuu isdaay bal waxaan soo shaqada u socoto shaqadan ay si fiican u socoto iyo inay kale bal soo kale ogaaw markaas Hargeysa diyaaradda Soomaaliya Airlines diyaaradda kale jiray tiibu ku tagay muxuu tagay xafiiska u tagay markii gudoomiyahana dhowr bari ka hor way sii ogaayeen inuu imaanayo maalin heblaay waqti cayman marka aribay soo gadeen oo neefkii way Soomaaliya u sameeyeen hilib iyo bariis iyo waxbaa loo keenay cuntadii bay cunay oo ninkii ku dhargay haddana daqiiqadii haddana wax kaloo sidoo kale ay u keeneen markaas uu dhahay waa neefsaha u kaadiya waa neefsaha markaas ari arday daaqada u fura nimanka neefsaha waxay qaadaan waa asagoo nasanayaa waliba bal ii kala yareeya wax lawa joogaa maanta biri way joogaa isagoo daaqad nimanka waxay malaynayeen odayga weesha fariisto soo kacayo duma dhargo ari daaqada u fur oo maxaa dhacay daaqada looya Somalia naftu kita berbagai sheekaysta markaas wuxuu dhahay maxaa daaqada fur adiga guriga noo urinayo guriga suuli ka dhigay markaas qosol baa dhahay war saas ma ahro waa nasanayaa marka hadii jeer waa la sheegaa waxyaabahaasi badan horta dadku marka ay kala lahjado yihiin kala degaan yihiin badan waxyaabo badan oo waxa jira ana iskaga mid ka ahayn marka laakiin markasta wax baa wuxuu waligi Soomaali eriga u maqlo qof kale sidaa waxaan maxay yihiin marka waxa fiican in qofku marka hadalka horta aad la yaabin barta daaqada ka bilaabeen balaas inta wax ka soo urayeen inta inay sugaan ورد عيد بس غير كل اسكو ويديا ما فعلا كل يا تني وين ما انت ني وين حبيبي والله ما يفكر حمينو ني وين هيلب كدرج هذا قد له فرويه ميركا كل واحد صريا تاخذ برشكت لا وظيفه رئيسه والله شيغاس يلا كسي دheeraan sheekada afraad ayaan bataksi wadana marka horeeya masada horeeya ما دكتور اشعري هذيك انا كوري ما يقوا كاتي دورت بريغي hore waxa la yiri dadkii hore dad aad xishad badan baa maxay hayday ninkii naagta xataa isqaba dariiqa ma isku hadli jirin isla raaci jirin dabeetana magaalo weyn inuu ka soo guursaday gabadh dabeetana tuulu
dowladii markuu keenay iyo markaa dadka magaalooyinku markaas way soo ilbaxayeen oo maogtahay Yaryar. way isla hadlayeen way silsilaami jireen dabeetana gabadhii baa maanta meel soo martay ninkii oo shax ciyaaraya ay soo hormartaan markaasay tiri inta soo hormartay buu saa waayay saddex xaaji baa ku salaama wejiga alla kaa gubiyo way ceebaysan taagay wejiga alla kaa gubiyo wejiga naga fiiqi mu dhahay meel xilli badan gabadhii nimankii bismillah tan soo guursatay meel gabadha dariiqa qaylinaysa ma soo guursatay markaasuu laakiin bismillah hadhow wiibi guriga soo ninka calaysan maxaa samaysay markaasay ti waxba waa ku salaamay wejigaad iga fiiqday shax dambe ciyaari karin ragga shax ciyaari kari waayo ragga shax ciyaari karin inuu joojiyo shacab inuu joojiyo waa inuu joojiyo asxaab kala sameeyo iminka nimankii saas ma ii eegayaan way igu sheekaysanayaan ma u tegi karo meesha waa ka guurayaa magaalada igu ceebaysay alla ku ceebeeye salaana guriga inoo taa xaaji uu ka xanaaqay inay xaaskiisa ku tiraadiga inay dariiqa ku salaanto oo isagoo meelaha ku ciyaaraya oo leeyahay hamta naagta adiga ku salaamaysa ayaaba ka xanaaqay marka wuxuu yidhi salaana guriguun ba inoo taala ay banaanka salaani inooma taalo mar dadkii horena markaa wuxuu ahaa dad aad xushood badan oo dee ma ahayn imika inkastoo dee anigu waxba dee salaan laysa salaamay dariiqa ama xaaji ha salaanto ama midka ha salaanto aniga noo soo xiraye markale wuxuu arkay walaa inay tii saakastaas u eg aan isku hadee ay isku waqti yihiin waqtigan hadda anaa soo joogo maba ay dheereen laakiin de dadkiisi ayaa waqtigaa joogaya dadkii hore ah maalina oday dariskeena anuu kaba yaraayo waxaad laakiin weyn baska maba 98 ilaa 99 wax soo kale 98 intana waxyar baa ka yar kaas oday dariskeena waxa aabay u sheegay marka qoys aroos ah oo markaas marka aroos galay ayo marka odayga uu soo salaamay haduu soo salaamay wuxuu u tagay islaantii ninkii wada qoraacarayo markaas ninki meesha ka soo laabtay soo fariis maya fariisan maayo ceeb buu maaragtay fadeexad buu la kulmay distri markaas meesha ka soo laabtay odaygii sheekadii waa yaraa hay odayga aabay marka maad maqan shay xafadii xageed ila ceebta maxaa dhacay ninkii saanti oo daraa soo booqasday quraac oo wax wada cunaya u tagay wax weyn of sayada wax gacanta gelisay way gacanta gelisay sayba loo cunaya qofkii soo karinaya weeyaan waxan ba yaa keenay waxan ba yaa cuntadii gacantiisa loo marka dadku waa sheekadaasi sheeko hore bay ahayd wallahi jahili bay ahayd waxoogaa maaragtay kulli dhaqan anaga markaa dhaqankina uu ahaayo xilligaasi dhaqankaas dhaqan xun buu ahaa waxaan qofkii soo kariyay bismillah hadii loo qaban keenay sidee wuxuu gacanta geliyay qof maanta markaa isagaa mudanba ugu mudanba inuu cuno bahro marka ma fiicna hortay oo maxay in qofkii waqtiga marka si loo soo eego in la xishoon jiray waa fiicnayd laakiin haddana inay heer ka gaadhay alla ya raxmadan inuu hooseeyaa waqtigiisu joogay iyadoo ba keenaysa waqtiga ba keenay wax maana qofna ma ahayn laakiin waqtiga waa wada socday waqtiga ba keenay marka horta barnaamijka caawa barnaamijka shanta sheekiya shaaha shantii sheek halkaas inaga dhan yihiin insha Allah isla socod wanaagsan subscribe-ta iyo share-ta iyo like-ta badda asxaabtiina sii gaarsiiya saan u wada socono dad badan oo sheekooyin sii gaarsiiya halkan igala soco inta aynu barnaamijka ku kulmi doono waxaan ka tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh